odayaal wax garad cuqaaliya sidoo kale salaadiin shir jiraad ku qabtay hotel dalwanaaji ee magaalada Burco ayaa ka hadlay xariga ay xukuumadda Soomaaliland ay xidhay Suldaan Maxamed Muuse Faarax Deer Suldaan Cune oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland. Haddaba odayaashan ayaa madaxweynaha sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqay inay xorriyadiisa u soo celiyaan Suldaan Cune oo ay sheegeen in ay ilaa iyo hadda garanayaan sababaha uu xidhan yahay suldaanku waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan masariya yuhuudba wax masaajid ku weerara bil Ramadaan qof leeydi uu hadaloo qura loo haysto meynaan adaga wax nagu cusub baahay annaga xanuun bay nagu haysaa fariintan si gaar ah waxaanu ugu socodsiinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaynu ognahay rag madaxweynaha isku beeliyihiin inay kuwa ugu fadalada cadcad yihiin tusaale haddaan u soo qaato Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi oo madaxweynuhu adeeru yahay suldaanka guud Subeer wala wadanka wuxuu galiyay waa loogaay wuxuu kaga dhaxday habeena lama xidhin wax loo raacayna ma jirin waxaynu ognahay siyaasiga weyn ee cimriga weyn leh ee Cali Guri wuxuu beeshan suldaankan maanta la xidhay yahay hadaladii qadafka ahaa ee ceebeynta ahaa ee xajiimeynta ahaa ee meelka dhaca ahaa uu kula kacayay waxaynu ognay waad mahadsantahay mooyee inaan wax kalaba iyo sharci midna lagu qaadin waxaynu ogay sheekiye shaahido inaan hore u arag caybuug lagu qoro oo taariikh laga dhigo wax allaala wax laga qaadayna oo talaabihi ma jirto waliba way ku ag fadhiyaan madaxweynaha sharcigana de waa loo simeeyay wadanka madaxweynaha maanta ma aha gudoomiye kulmiye mana aha de oday beeleed shacabka Soomaaliland oo dhan isaga sharciga inuu ku ilaaliyo xilka saaran yahay hadduu qaarna qabadsiiyo qaarna ka daayo de waxay noqonaysaa tii xabashidu ku maamaay jirtay li jaqamaan yaabay tadaaya inankii yaraaye tuuga ahaa bixii xaakinka ahaa sharci ma qabto annagu Suldaan Maxamed Muuse sharci ma diidan hadduu wadanka iyo dalka wax yeelay leeyahay laakiin kuwii ka xumaa ayaa madaxweynaha ag fadhiya markay qabtaan baanu qabanayaa de suldaankan markaa madaxweynaha fariintayda aanu dirayaa waxa weeye odayaashayada aqoon-yahanka dhalinyarada baaqaa imaanta ku diraya inaad ooda ka soo qaado ninka odayga ah Suldaan Maxamed Muuse Cune faraha ka qaad haddii aad ka qaadi weydo suldaanka guud ee Subeer wal xid Cali Guri xid ugu barwaaqo oran maaye xid markaad kuwa jeelka ku ubsato Muuse Cune Suldaan Maxamed Muuse Cune wuxuu noqon doonaa la sharci buu noqdo oo sharcigu uu wada qabanaya laakiin Suldaan Maxamed Muuse buu sharcigu qabanaya ma suura geliso gobolkiisii inuu soo celiyo oo haddii dambi lagu helana lagu maxkamadayo haddii lagu waayo inuu xorriyadiisa ku helo ayaanu marka hore doonaynaa waa arrin aan wadanka ka jiri jirin waa arrin cusub gobol loo aftuubayo weliga maana arag hore ma ay dhicin Maxamed Muuse la soo celiyo gobolkiisa lagu soo celiyo halka haday dawladdu wax ka tirsatay maxkamadda lagu soo saar dadkuna xoolo ma ahee waxa madaxweyne wixii aad ayda ka gashay ee ka jabhadaysay ee ka dagaalantay waxay ahayd afduub caburin aga juglayn aad u adkaysan weyday ayaynu gidiga baayida ka gal oo dawladdu xooga badnayd ee militariga hay'adda Soomaaliya aynu ugu bareen marka iminkana waxa muuqatay tii aynu ka dagaalanay inay ka bilaabatay wadanka de waxaan leenahay laga daayo wixii qalada ee uu galayna waanu ka jid qaadanaynaa hawshan odayaashu ay ka hadlayaan waxaan leeyahay wasiir marka hore aday ku hortaalaa aday ku qusaysaa maadaama aad wasiirkii gudaha tahay wax badan oo horena ay jireen waxay ahayd dhowritaan badan inaad samayso si aan qalad u iman waxaan ku soo nabadiyo caana maashay wasiirka iyo madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa Maxamed Muuse dadka kamuu maxaan ku leeyahay kamuu duwanayno deyrka ka muugubin wixii dadku lahaayeen buu lahaa haday khalatay haday sax tahayba qaar ka dambi waaweyn arlada waa qaadayaan oo waa til la sheegay isaguna maxaan ku leeyahay hadalada lagu hadlayo buu qaarkooda ku hadlay aanu ka codsanaynaa dawladda sariyada hooseba in loo soo dayaa maanta Soomaaliland inay isxidho
iyo inay suldaanada iska xidho iyo inay odayaasha iska xidho dee kuma wanaagsana waayo cadowgaaba ku soo duulayo iyadu inay meel u wada jeesato xagga cadowga wada abaarto ay Soomaaliland ay xoreyso ayaabay ku wanaagsan tahay laakiin haddii inaga is xidhno odayaasha xidhno oo maxaan ku leeyahay juuq ilaha la xidho dee cadowgaanu waa ka faa'iideysanaya way inaga faa'iideysanaya Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco